war degdega ciidamada ka marqaatay lafta gareen ay soo saareen war saxaafadeed ay ku sheegayaan in loo baahan yahay shacabka magaalada Baydhabo inay ka xaroodaan ee magaalada iyagoona ay u sheegeen inaysan soo kala dhaxgalin ciidanka iyagu u yaqaanaan salbalaartu ay ku tilmaameen ciidamada daacad ah lafta gareen kuwa ay sheegeen in magaalada Baydhabo ay ku soo duushay salbalaartu ay ula jeedaan salbalaartii xilligii hore isla markaana ay ku sheegeen in tanina aysan ka dubnayn salbalaartaas oo iyadoo ay ka tahay waa sida iyagu ay ka dhawaajiyeen isla war saxaafadeed waxay ku sheegeen inay xoreyn doonaan ee magaalada isla markaana mar kale ay la wareegi doonaan dhawaan ay ahayd madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen oo wareysi uu bixiyay ku sheegay in isaga uu yahay madaxweynaha saxda isla markaana uu qaadi doono tallaabo oo cad oo looga fadhiyo inay iyagu ay ku xoreeyaan dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya dhaqdhaqaaqadii ugu dambeeyay ayaa ka socday magaalada Baydhabo labada dhinac ayaa heegan buuxa galay iyo ciidankii daacad waa Lafta Gareen oo dul jooga duleedka Baydhabo iyagoona suuragal ay tahay saacad kasta inay halka ay galaan 10 May ayaa la qorsheenayaa suuragalna ay tahay inay duulaana adag ay ka dhacaan halka dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda awood badan ay halka u joogaan isla markaana iyaguna ay galeen heegan buuxa shacabka magaalada Baydhabo ayaa war saxaafadeedka looga sheegay inay ka waantoowaan isla markaana soo kala dhaxgalin iyaga iyo ciidamada salbalaartu waa sida ay ku qoran tahay war saxaafadeedka ay soo saareen ciidamada ka marqaatay Lafta Gareen wixii faahfaahin kale ka soo kordha arrinkan halka oo TT Somali TV kala socda ma sanadeen